xilli maalmihii ugu dambeysay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku soo badanayeen gaadiidka yaryar ee loo yaqaano neecda ama afjiirka hadba sida ay Soomaalidu u taqaano loona adeegsado adeegga suuqa iyo sidoo kale qaadista rarka fudud ee ay gadanayaan shacabka ka adeeganaya suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa xilligan soo baxayso cabashooyin xoogan oo laga muujinayo soo badashada gaadiidkaasi yaryarka ee ku soo badanayo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose cabashadaasi oo ay wadaan qaar ka mid ah dadka ka shaqeysto gaari dameerka kareetooyinka iyo sidoo kale gaari gacanka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Kismaayo waxaana ay dadkani tilmaamayaan in intii ay soo bateen gaadiidkan yaryar ee alaabta lagu qaatay ka dhex shaqeeya suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ay soo wajahday dadka ku shaqeysto gaari dameerka iyo sidoo kale kareetooyinka shaqo la'aan baahsan taas oo ay ku tilmaameen inay sabab u yihiin dadka ku shaqeysto gawaarida yaryar ee xilligan soo buux dhaafiyay magaalada Kismaayo xilli aan arrimahaasi waraysi kala yeelanayay ayaa waxay tilmaameen waxaan ka shaqeeyaa dameer dibidan baan wataa anigoo la dhaho Maxamed Axmed Yuusuf waxaan neeciyada iyo baabuurtan yaryar afjiirka ayaa wadooyinka nagu qabsadeen suuq ayaga dib ku qabnaa bacaan ku qaadi jirnay bac ka yar bay ku qaadaan maamulka waxaan ka jecelnaa inay naga qabtaan oo suuq loo suubiyo suuqii wadooyinka ayaga naga qabsaday maalinta tookadooda ha galaan maalina tookadan aan galno kareetooyinka inta soo sano Kismaayo joogeen inay ciishkooda dagaraanka ay heli waayeen ay weesan yihiin maantana tale ay heenin halkaan ay baahi ku dhamaanaysaa waa ku rafaadsan yihiin waa ku jajabayeen wax lagu suubinayo Allah abuurtaba in meel la geenayna ma jirto baabuurta iyo iyaga waa isku dhib qabaan xawayaankan aan isku dabarnay oo 20 sano hadda kadib aan saarnay oo korkeena baawur adduunyo lagu soo degay kareetaalida balcad ee 20 sano kareetooyin saan u wada hadda kareetooyinkii wax baa suuqa naga baxsaday nimankan afjiirta iyo baawurta neecda wataan meeshan aan ku baahanahay kareetooyinkii darbiile iska fadhiyaan quraac kama haysano dibigan cooskiisna ma haysano meeshan aan ku dhibaataysanahay maamulka waxaan ka codsanaynaa inaan nalaga soo gaaro waxaan rabnaa anaga iyo baawurta tooka in loo sameeyo maalin baawurta ay qaataan maalin anaga meeshan waa iska fadhinaa hadda meeshan dibigan xayawaankan wax u baahan yahay coos haddaba si aan wax uga ogaado jiritaanka eedeymaha loo soo jeediyay dadka ku shaqeysto gaadiidka yaryar ee alaabaha looga qaato suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo muddooyinkan ku soo badanayay magaalada ayaan ka wareystay jiritaanka eedeymahaasi iyo waxyaabaha ay kala socdaan wallahi kama nasaarana ku baawurta dameerada iyo isha gaargacanka anagu baawurta neecda ah wadanaa magaaladiina waa kala fogaato waa durugtay meelo bacaadaha iska jira meelaha dhadhow suuqa dhexdiisa dameerudu ka adeegi karaan ma qaadi karaan isheeg alaab fog ma qaadi karaan anagu alaabtaas aan qaadno ma jirto midaas ma jirto dameerka wuxuu qaataa wixii rarkiisa uu qaataa waa xaafadaha dhadhow anaguna meelaha fog baan u qaadnaa magacaygu waa Mawlid Xasan Ali ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose niyahow anagu baawri baan nahay baawurtan yarka aan ku shaqeysanaa dameerahana waxa way khadkana ka saarna anagu ma naaka kalifina bulshada ka liftay oo dameeraha dib badan ku qabay marka dibka ku qabeen waxa kamid ah markii alaabta saartaan inay micnihi ay dib ku noqoto inay raacaan hadda anagu alaabta marka gaariga saarna kadib ayaga shirka galina oo ku qaadna ayagoo qabow aan kulaan baan geynaa meeshoodii ay dadku waxay u cararaan dameeruhu waa nafle oo waa masaakiin oo wixii raashin badanna ma qaadaan wixii la saarana meel dhexe la fariisanaya anagu laakiin birtaas gaariga san wadana alaabtana waa qaadnaa dadkana waa qaadnaa marka si kale oo shaqeynaa dadku waa dhaqaaleynaa waxaan arinta kale kulay qof kasta horta calafkiisa ayuu qaadayaa oo qof kasta qof israaqadii qof hadda ku shaqeyn kara ama taas alla uu tala saaran tahay marka micnihii waxaan ka dhigi karaa taas baabuurtan waxaa loo soo gatay magaalada Kismaayo inay ka dhex shaqeeyaan bulshada u adeegan kulay kareetooyinkan iyaguna waa u adeegi jireen saasay tahay bulshadii waxay door biday oo jeclaatay wixii kareeto wax ku qaadayay maadaama baabuurtan ku qaadayso inuu shakhsiga hantiilaha uu baabuurka wax ku qaato micnaheedu markuu baabuurka wax ka qaato shakhsiga markii hore meeshu ka lugeyn jiray haddana inuu gaarigiiba sii raaco iska hofeedsado arrintaas ayaan kareetaridu ay dib u arkeen ma ahaan wax dhib oo kale saayidoo kale oo ku hayno oo xagga hadda baawurle ku hayso ama israaqadooda ama qaabkooda aan midna ma jirto waxaan ku eedeynaa bis qof aan eedeynaa anaga baawurle ayaan waa shaqeysanaa waa xamalnaa waxaan dadna kuma dhibno waa dadkiis waxaan jecelnahay inaan meelaha aan iska xamalno dadkii alaabtii dadkii inaan isku qaadno gaar dameeradana ma qaadi karaan waa nafleey waa si bacada la galaya baawurada radootay leeyaan baday tagaan meel kastay tagaan dabcan isku mid ma noqon karo saaxiib laakiin aan ku sheegay hadda inaan ka qaad weynahay aan ka socod badanahay meel kasta aan tagayno dadka aan fududeyna xiliyo kuleel lagu jiraa si kastaba ha ahaatee cabashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinka ugu dambeysay magaalada Kismaayo
ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku soo badanayeen gaadiidka loo yaqaan neeca kuwaas oo inta badan qabto shaqooyinka loogu talagalay gaari gacanada iyo sidoo kale gaari dameerka waxaana cabashadan ay ku soo beegmaysaa xilli mashquul xoogan oo dhinaca gaadiidka laga dareemayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maxamed khaasim cali waxar TV-ga caalamiga ee saab magaalada Kismaayo